magacaygu waa Raxmaan Maxamed Mare waxaa ka mid ah macaamiisha bangiga Salaam Somali Bank maanta waxaan ka soo qayb galay workshop ee maanta noo qabteen oo ku saabsanaa wacyigelinta kor u qaadida aqooneed dhanka maaliyadda mawduucaas oo macna muhiimad badan oo u leh bulshada dhinaceeda in laga wacyigeliyo marka wax badan aan ka faa'iidnay sida u samaysan lahayn budgetinga sidoo kale expenditure sida askaga dhimi lahayn oo kaleeto waxyaabahaas oo dhan aan ka faa'iidnay marka kambaniga mar labaad mar saddexaad waa ku mahadsan yahay wacyigelinta bulshadana inay kor u qaadaan magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiqaadir Axmed waxaan ka mid ahay ka soo qaybgalayaasha workshop-ka ay qabatay maanta Salaam Somali Bank waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qaybgalo workshop-kan runtii waxay ahayd saacad dahabi ah oo aan ku faa'iido waxyaabo badan noodkii aan ka samaystayna waxaan rajeynayaa inay anfacdo lifetime-kii nololeed waxaan u soo jeedinayaa mahadcelin ballaaran bangiga iyo soo qabanqaabiyaasha barnaamijka soo qabanqaabiya waxaan leeyahay si laba jibaaray wacyiga wadaan magacayga Cabdikaafi Maxamed Gurxan ka mid ah macaamiisha Salaam Somali Bank barnaamij uu soo agaasimay Salaam Somali Bank kaasoo laga hadlayay financial literacy-ga waxyaalihii aan ka faa'iiday ama aan galabta ka kororsaday waxaa ka mid ah sida loo sameeyo budgetka sida la mid ah waxaan ka faa'iiday qofka bini'aadanka dakhliga soo gala sida uu kala maareyn lahaa waxayna runtii arrimahaasi intifaac u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed waana ku faraxsanahay waxaana bangiga ku dhiirigelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad inuu hawlahaas dardargeliyo bulshadana si qurux badan ugu soo gudbiyo mar walba wax intifaac leh magacaygu waa Caashin Maxamed Salaad waxaan ka mid ahay macaamiisha Salaam Somali Bank waxaan ku faraxsanahay barnaamijkan ee noo soo qabteen bangiga Salaam Somali Bank kaas oo maanta uga hadleen barnaamijka uu ahaa wacyigelinta dhanka maaliyadeed runtii aad ugu faraxsanahay waxyaabo badan aan ka faa'iiday waxaa ka mid ah qofka siduu u samaysan lahaa budget personal qorshe oo shakhsiyadeed oo xagga maaliyadda lacagaha soo gala siduu u maareyn lahaa sidoo kale iyo waxyaabo ka caawinaya inuu iska ilaaliyo khataraha kaga imaan karo xagga maaliyadda sidoo kale waxaa ka codsanayaan banka Salaam Somali Bank in barnaamijyadan oo kale si laba jibaaraan si badan si bulshada uga caawiyaan inay ka faa'iidaystaan maareynta xagga maaliyadeed magacaygu waa Aadam Axmed Maxamed maanta waxaa nasiib u yeeshay inaan ka qayb qaato program uu soo agaasimay Salaam Somali Bank barnaamijkaas oo lagu focus gareynayay financial literacy iyo bulshada Soomaaliyeed in laga wacyigeliyo arrimaha maaliyadeed iyo riskiga oo imaan karo runtii barnaamijku waxyaabo badan ka faa'iiday shakhsiyan inkastoo aan ahaa finance background haddana wax badan oo uu kordhiyay barnaamijkaas oo ah dalka in uu ka hirgelay barnaamijyo insurance risk management naftirkiisa bulshada in aad ay uga taxadirto iyo fruudka oo imaan karo dhankaas run ahaantii bangiga aad u mahadsan yahay barnaamijkan aad uga mahadcelinayaa waxaan kaloo dalban lahaa ama bangiga ka codsan lahaa in barnaamijyadan oo aad u soo kordhiyo taasoo saameyn aad u qurux badan ku yeelan doonto bulshada Soomaaliyeed